بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب ولا ليال وولالكم فتحي iyo darsigeennii shanaad oo ka mida duruustii aynu ugu tala galnay inaynu kaga hadalno fadlu cashri اluwali min dilxijati wa axkaami alciidi waaludxiyati wa ayaami tashriiqi wuxuu darsigeennu ka bilaabanayaa biidni illaahi tacaalaa waa qodobka toddobaad oo ka mida duruustii waxaan u jeedaa qodobadii 12 ahayd ee aynu dhahnay waynu kaga hadlaynaa biidni illaahi tacaalaa mawduuca qodobka toddobaad waxaa ciwaan u ah xukmu aludxiyati fi lislaam xukumka ay leedahay udxiyadu islaamka dhexdiisa ma waajibba mise waa sunna udxiyadu xukumkeeda marka hore waa inaynu ogaanno inay shay tahay ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn oo min acdami shacaa'ir alislaam ah waxyaabaha ugu waaweyn ee muuqaalka guud ee islaamka marka la eego sida ma garanhaysaa ee shacaa'irta marka laga hadlahayo sida ciidaha oo kale xajka oo kale waxyaabaha waaweyn ee markaa gaal iyo islaamba muuqan haya iyo jamcada oo kale yacni waxyaabaha muuqaal ahaan magac ahaan iyo ma garanhaysaa xagga astaamo ahaan marka la eego isla markaaba la garanhayo waxaan islaamka iskale markaaba la dhahayo shacaa'irta waaweyn ee goonida muslimiinta u ah loona yaqaano inay iyagu leeyihiin loona qirsan yahay gaal iyo islaamba ayay kuwooda ugu waaweyn ka mid tahay horta wuxuu leeyahay sheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin raxmatullaahi calayhi isagu wuxuu ku leeyahay risaaladiisa maaragtay muxuu ahaa la dhaho rasaa'il alfaqihiya wuxuu leeyahay rasaa'il alfaqihiya safxada 46 wuxuu leeyahay inahaa idaa tarakahaa ahlu lbaladi quutiluu calayha liannaha min shacaa'ir alislaam hadday dadka beledku ka tagaan oo ay samayn waayaan ma garanhaysaa wax udxiyo ah waa lagula dagaalamahayaa maxaa yeelay liannaha min shacaa'ir alislaam waa shacaa'irta waaweyn iyo muuqaalada waaweyn ee islaamku leeyahay mid ka mid a markaynu u soo laabanno ma waajibba mise waa sunno waxa weeye culimmada islaamku way isku khilaafeen laba qowl bayna arrinkaa isaga ah ka leeyihiin waxa weeye qowlka koowaad waxay leeyihiin laba qaybood bay noqdeen qolada koowaadi waxay leeyihiin markii laga hadlahayo udxiyada annahaa waajibatun waa waajib waxaa sidaa qaba oo sidaa inay waajib tahay qaba waxaa qaba alimaamu alawsaaci walleyth wa abu xaniifa wa ixda alriwaayatayni can imaami alaxmed wa qaala bihi ashaykhu alislaam ibnu taymiya wa axadu qowlayn fi madhabi maalikin aw daahiru min madhabi maalikin
culimmada qabta inay waajib tahay waxaa ka mid ah alimaamu alawsaaci iyo leyth baa ka mid ah, waxaa ka mid ah abu xaniifa ka mid ah, waxaa iyadana ma garanhaysaa soo raacda laba riwaayo uu leeyahay imaamu axmed mid ka mid ah. waxaa sida oo kale isna qabay asheikhulislaam ibnu teymiya inay tahay waajib. sida oo kale laba qowl oo uu kale leeyahay madhabka maalikigu uu leeyahay mid ka mid ah ama daahirka madhabkaba sida maaragtay daahirka kore ka muuqata iyaguna ma garanhaysaa sidaasay qabeen. culimmada sidaa inay waajib tahay ku tagtay nusuus bay deliishadeen ay ka mid tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa fii suurati alkawthar nabiga uu ku yidhi fasalli lirabbika wanxar wa qaaluu haada ficlu amrin waalamru yaqtadii alwujuuba. waxay deliishadeen aayadda fii suurati alkawthar ku jirta ee allah subxaanahu wa tacaala nabigiisa leeyahay innaa annaga alliihi inna acطaynaaka waanu ku siinay alkawthara, webigii kawthar ayaanu ku siinay ama khayr fara badan baan ku siinay. ee fasalli lirabbika wanxar, fasalli utuka rabbiga, fasalli lirabbika rabbiga keligii utuka wanxar isaga oo keli ana wax u gowrac oo wax u dhowndhow, yacni muxuu ahaa wax u dhuundhow. inta badan naxriga geelaa loo isticmaalaa, xoolaha kalena dabxigaa loo isticmaalaa. culimmada marka inay waajib tahay ku tagtay fasallidaas ayaa waxay dhaheen waa ficlul amrin, waa ficlu amrinoo waxa weeye hadduu maaragtay kitaabka ama sunnada hadduu sidiisaba maaragtay shay lays amrayaayi uu ku soo arooro yaqtadi alwujuuba, wuxuu waajibiyaa waajib, wuxuu keenaa waajibnimo ayuu keensadaa. marka fasalli baa layidhi waa ficlu amrin, utuka rabbigaa oo isaga u dhowndhow. sidaa ficlu amarkaasaannu ka qaadannay bay dhaheen. waxaa kalay cuskadeen oy deliishadeen xadiidu jundub radia allaahu canhu fi saxiixayn wa gayrihima qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man kaana dabaxa udxiyatahu qabla an yusalliya falyadbax makaanaha ukhraa waman lam yakun dabaxa falyadbax bismi illaah rawaahu muslim. waxaa kalooy deliishadeen xadiidka nabiga ee uu warinhayo imaamu muslim uu soo saaray, wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii gowracay, ruuxii isagu udxiyadiisa gowracay intuuna salaadda tukanin ka hor, salaadda ciidda tukanin ka hor, qofkaa isaga ihi falyadbax makaanahaa ukhraa, kama aysan gudine booskeedii tu kale salaadda kadib ha gowraco, tii hore waxba kama jirtee. waman lam yadbax dabaxa waman lam yakun dabaxa falyadbax bismi illaah, qofka aan weli gowricin isagu waa sidii la rabaye salaadda kadib ha gowraco, bismillaahina ha ku gowraco. bismillaahi intaynaan ka bixin halkaas, bismillaahidaas ayaan bilmunaasaba waxaan rabaa inaan taabto qofku markuu wax gowracayo, xoolaha la gowracayo ama ciidul udxiya ha noqoto ama gowraca kale iska caadigaaba ha noqoto, xoolaha marka la gowracayo in magaca alle lagu gowraco, siduu allaba leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa ta'kuluu mima lam yudkar fiihi ismullah, ha cunina waxaan magaca eebbe lagu gowracin. sidaa daraaddeed sida reebaadiyaha duurka ku nool oo kale haddaad maaragtay neefka marka aad gowracaysa ku gowracdo aad waxyaabo kala sheegto ama aad salliga nabiga ku gowracdo
oo dhahdo ma garanaysaa tusaale ahaan allahuma salli calaa sayidina muxamed oo kale reebaadiye badan baa yaa maaragtay xoolaha saa ku qasha arrinkaasi waa arrin khalad weyn ah weeye hadduu ruuxu isaga oo ma garanaysaa waxa u cilmile uu sidaa isticmaalana oo uu sidaa ku gowracana bakhti oo kale weeye arrin fiican ma aha sidaa daraaddeed waa in magaca alleh wax lagu gowraco haddii wax uun bismillaahi la raacinhayo bismillaahi wallaahu akbar inuu raaciyo sidaasaa soo aroortay bismillaahi in lagu gowracaba ee maaragtay xoolaha aynu ku qalanno qodobka saddexaad ee ay maaragtay ay deliishadeen waxaa ka mid a qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam man wajada sacatan falam yudaxi falaa yaqrabanna musallaana ruuxii wuxuun waasacnimo ah oo inay u suurtagalayso inuu ma garanaysaa wax udxiyaysta ay u suurtagalayso oo aan waxba udxiyo a gowricin oon udxiyo samaynin falaa yaqrabanna musallaana yuunan u soo dhowaanin meelaha aannu ku tukanhayno makaanu tukadkanaga yuusan u soo dhowaanin taana way deliishadeen xadiidkaana imaamu axmed iyo ibnu maajah baa soo saaray xaakimna wuu saxiix yeelay xadiidkaas min xadiidi abi hurayrata radia allaahu canh qoladaasi waa qolada hore oo qabta inay tahay waajib inay tahay qolada qabta weeye qolada labaad ee culimmada iyaguna ka mid ah waa jamaahiiru ahlilcilmi weeye iyagu waxay qabaan annahaa sunnatun mu'akkada inay tahay udxiyadu sunna mu'akkada waana qowlka jamaahiiru ahlulcilmi culimmada intooda badani ay qabaan wa huwa madhabu ashaafici wa maaliki wa axmed fi lmashhuuri canhuma laakin saraxa min arbaabi hada alqowl bianna tarkaha lilqaadiri yukrahu culimmada markaa maaragtay jamaahiiru ahlulcilmiga oo intooda badan ah waxay iyagu qabaan inay tahay sunna mu'akkada marka sunna mu'akkada waana ta aad mooddo inay xoog badan tahay wey sunna mu'akkada inay tahay waana madhabu limaamu shaafici iyo maalik iyo ma garanaysaa imaamu axmed sida mashhuurka a maalik iyo muxuu aha imaamu axmed markii laga reebo labadii riwaayo ama labadii qowl aynu xagga hore aynu maaragtay aynu ku soo sheegnay sida mashhuurka ah inuu madhabkoodu qabo inay sunna mu'akkada tahay oo ay shaafici ku raacsan yihiin laakiin waxay caddeeyeen culimmada madhabkaa qabaay in laga tago oo uu ruuxu isaga oo awooda inuu sameeyo udxiyo qofkii ka tagaayi inay karaahiye tahay ka tagitaankeedu qofka yacni isaga oo markaa kara ka tagaayi inuu karaahiye ku dhacay waxay deliishadeen iyaguna xadiidkii jaabir ibnu cabdillaahi radia allaahu canh ee ku jiray fii sunani abi daa'uud ee uu dhihi jiray qaala sallaytu waa jaabire uu dhihi jiray sallaytu maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama ciida aladxaa falamaa insarafa ataa bikabshin fadabaxahu faqaala bismi illaahi wallaahu akbar allaahumma haadaa cannii wa canman lam yudaxi min ummatii jaabir wuxuu leeyahay nabiga ayaan la tukaday maalin waa ciidul adxaa nabigu markuu ka baxay salaaddii ayuu wuxuu la yimid ma garanaysaa markaasuu gowracay wuxuuna yidhi bismi illaahi wallaahu akbar
ilaahay magacii baan ku gowracayaa isagaa weyn. markaasuu haddana yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam allaahumma haadaa cannii wa camman lam yudaxi min ummatii. ilaahayow kani aniga xaggaygu ka ahaaday oo naftaydaan ka gowracay oon ka udxiyeeye wey. wa camman lam yudaxi min ummatii, iyo qofka ummaddayda ka mid ahee aan isagu udxiyaysanin ama ha awoodi waayo ama si uun adugu ha noqotee qofka ummaddayda ka mida yacni sadaqa a samaynin. fii sunan abi daa'uud mujalladka 7 xada 486 buu kaga jiraa. waxaa kalooy deliishadeen maa rawaahu aljamaaca ila albukhaariy min xadiidi man araada minkum an yudaxiya falaa ya'khud min shacrihi wa adfaarihi. xadiidka ay warinayaan jamaacadu bukhaari marka laga reebo ee ma garanaysaa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam man araada minkum an yudaxiya, qofkii idinka mid ahoo doona inuu wax udxiyaysto falaa ya'khud min shacrihi wa adfaarihi, yuunsan waxba ka goynin ee timihiisa yuunan waxba ka goynin iyo ciddiyihiisa. macnaha yuuna timahana iska jarin ee ma garanaysaa ciddiyahana iska jarin, yuuna timahana iska xiirin, muxuu ahaa ciddiyahana yuuna iska jarin. xikmadda culimmadu waxay dhahaan qolyaha xajka jooga ayay iyaga ma garanaysaa yaa sameeyo xalqi iyo soma ah, iyaga aynu halkaa aynu ka taageeraynaayo iyagii baynu leenahay waan idinla qaybsanaynaa hawsha adageed ku jirtaan. waana jima tuurashi iyo shacaa'ir kale weeye. marka intaasaan darsigan ku soo koobayaa. wixii aan waafaqay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajintiisa, wixii aan gafayna waa aniga iyo fahmi gaabnidayda iyo daalibnimadayda. wallaahu aclam wahuwa weliyu towfiiq. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده إنه قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.